هلو هلو هلو. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام أصحابتا. في دادي جري شريطهم مكان دانا عشان تزوج بحي. وعليكم السلام أصحابتا دمانتين. اوكي سو دواada maxaa dhahday Zara soo dhawow asxaabta soo dhawaada Yasmin soo dhawow xus Harbi soo dhawow Zara هاي اسمع حسن. اوكي وكينا برينك كاميرا هاي واني انفتقري دارفتن انا اقل قيب كيشان برامجك عدي جعل وادي سلام دمان اصحابتا ملك الساعة جوكتان اي ساعد والبايدين تاي صباحي هند جامع سنو هند جامع صباحي سنو هذا أصحابته لا سنية كم صباحي تجري شريطه صباحي وعليكم السلام دمان أصحابته شرفت له ميل باجوكتان دم كاميرا اوكي سودو هذا أصحابته سودو هذا ميل باجوكتان اوكي جعلنا ما جلسوا قيب قلا برامجك سيداي مغشان هذا سوري سيداي مغشان هلو 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 وادي سلام دمانت أصحابته قد كجر مالو باجوكتان إيو ساعد والبايدين تاي هلو هلو ودي جري شاليتو والله صباحي ودي جري شاليتو هاي يا جعل لنا برامج كاغلا قيب قرش بدل سو خبره ان شاء الله برامج كاغلا قيب قري دون ريشن يتسمن مع جمهور الله صوبه
أصحابتي وادين سلام ميلو بجوكتان إن ساعد والبيدين تهاي يا جعل البرامج كلا قيب قرو واحترك بالشدة أوكي waxaan geli doonaa qodobada wararka ugu doorka roon kusoo dhawaada wararka qodobadiisa ugu doorka roon anigoo wariga cabdinaasir maxamed xaaji axmed idin soo jeediyo muran siyaasadeed ayaa sii xoogaysanaya 24 saacadood ee la soo dhaafay iyadoo beesha caalamka iyo hay'adaha bulshada rayidka ay ugu baaqeen in xiisadaha la dejiyo si loo badbaadiyo gudaha ilaa iyo haddana la gaaro dowladda iyo ammaanka Soomaaliya dhinaca kale maanta waxa magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay xubno xildhibaan ah oo u badan kuwa ku jira golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre waxayna ugu baaqeen gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cusmaan Jawaari inuu iscasilo arrintan ayaa imaanaysa iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanada iyo gudoomiyaha Jawaari ay ku eedeeyeen xukuumadda in shaqo gudasho la'aan hadaladoodina waxaa ka mid ahaa xildhibaanadii maanta ka hadlay jooga waxaan jeclahay in lagu kalsoonaado xeer hoosaadkan uu gudoomiyaha mooshinka ka yaallo ugu horeyn isagu saxiixay waa nasiib darro waxay wax u dhimaysaa aqoontiisa waxay wax u dhimaysaa diintiisa waxay wax u dhimaysaa karaamadiisa intuu yidhaahdo halkanaa looga baxay waayo cidi kama noqon karto marka la aqbalay ilaa laga geeyo baarlamaanka gudihiisa golaha shacabka dhexda daba imaashanayaan waxay tahay codkaagaad leedahay sidoo kale waxaa arrintaasi ka hadlay xildhibaan 17 ayaa ka noqotay laakiin 16 ayaa waxay noqdeen magacyada la helay hal qofna lama helin sidaa la adligeed buu yiri 91 bay noqotay marka ma soconayo mooshinkaas geesay gudoomiye geesay baa weydiiyey markaa ma hadalkii isagoo ku jira ayuu weydiiyey wuxuu yiri ma waxaa leedihiin mooshinkaas ma jiro haddana gudoomiye muddo baa kusoo noqday wuxuu yiri haa waxa mooshinkaas waa dhamaatay dad badan baa su-aal weydiiyey odaygana ka mid ah dadka su-aasha weydiiyey oo ugu dambeeyey yiri muxuu ah war arrinta maxaad leedihiin yani mooshinka waa jirmaana leedihiin haa waa jiray uu yiri mudday asaga afkiis ku dhawaaqay qoladii minidka qorayna way joogaan muxuu ahaa annagana waa joognay ilaahay hortiis marka meeshaas waxaan kaga tagnay in mooshinkii la keenay uu sifo sharciyeed noqon waayey uu geli waayey ajandihii baarlamaanka isla kulankan gaarka ah xildhibaan maxamed cumar carte oo shirkan loogu doortay inuu waxaa kulan aan caadi ahayn isugu yimid guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo uu gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare wuxuu go'aansaday arrimaha soo socda kow guddiga joogtada ee golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa dhammaan golaha shacabka
guddiga joogtada ah golaha aqalka sare wuxuu ugu baaqayaa guddoonka guddiga joogtada ah dhammaan xubnaha golaha shacabka sidoo kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in ay ka wada shaqeeyaan xasiloonida sharada ay soo jeediyeen oo golaha shacabka ka mid ah oo ay soo dhigeen mooshin kalsooni kala noqosho lagala noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka oo aniga ah ay soo jeediyeen waa xaq ay leeyihiin waa xaq dastuuri ah waa arrin hoosaadkeena oo ogol yahay waa arrin dimuqraadiyada iyo dhaqankaba uu ku dhisan yahay weeyaan waana ku saxsan yihiin inay keenaan in laga qabtana xaq bay u lahaayeen waxaa baarlamaanka oo uu noqdo ra'yi baan leenahay waa doortaa cod baan ku kala baxnaa waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee Soomaaliya oo madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshiinadan ayada ay daba joogto oo haddii alla ku ruuxay ujeedadan ay tahay in baarlamaankaasi hawsan noqonin mid shaqeeya waxaana oo ka hor imanaya nidaamka mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani ujeedada ma aha jawaari meesha laga leexiyo waa ujeedada waxaa loo jeedaa waa burburin dhinaca kale macadka heritage ee fadhigooda yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray baa ku wajahan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu si dhaqso ah u farageliyo xaaladaha murugaysan ee ka jira hay-adaha dastuuriga dooni ay saarnaayeen dad muhaajiriin ayaa ku qalintay xeebaha u dhaxeeya Greega iyo Turkiga ilaalada xeebaha dalka Turkiga ayaa muhaajiriin ay ku jiraan 4 caruur ay ku dhinteen kadib markii ay dooni ay saareen ku raxantay badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega waxa kaloo la aaminsan yahay in doonidaasi ay saarnaayeen dad kor u dhaafaya ilaa 20 qof ayadoo dadka qaar weli la laayahay waxaana saacado goob ah lagu jiraa dadkaasi wasiirka socdaalka ee Greega Dimis Vedres ayaa sheegay in dadkaasi dalka Greega uusan raalli ka ahayn doonin in ay dad ku dhintaan jasiiradda Aegean ee dalka Greega warkaasi waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda iyo TV-ga lant iyo bartayna Facebook-ga waa anigoo ah wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed ah wajufaa kusoo dhawaada wararka arrimaha dibadda Britain oo adkeynaysa amniga dadka Ruushka u dhashay ee dalkeeda ku nool booliiska dalka Britain ayaa bilaabay inay si toos ah ula xiriiraan shakhsiyaad aad u dhashay dalka Ruushka ee ku nool dalka Britain ee maangalyo siyaasadeed ku jooga Britain si ay u hadlaan xaaladaha amniga booliiska ayaa wado baaritaan ka dhan ah dilka nin ganacsada ah u dhashay dalka Ruushka oo dhawaan meydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala London dad rayid ah ayaa weli ka baxsanaya goobaha go'doonka bariga quuda ka baxsan magaalada Damashq ay xoogaga dowladda tabacsan ay weeraro aan joogsi lahayn ay ku qaadayaan waxaad naga dhageysanaysaan bartayna Facebook-ga waa anigoo ah wariye Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed oo dufa barnaamijkeena waxaa fikirkaagana waa ciddii jecel fikirkeeda inay dhiibato waa nagala soo qeyb geli kartaa barnaamijka halo halo
jiray 15 kan gacantii la soo baxay kan gacantii la soo baxay soo baxay soo dhawaada asxaabta Hello. Los